لله الذي خلق فسوى قدر فهدى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه وخليله المبعوث رحمة للعالمين بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صنائع المعروف تقيء ميتة السوء وصدقة السر تطفئ غضب الرب وصلة الرحم تزيد في العمر أو كما قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله كلغeen ka hadlaya kala la hadlayo intuba waxaan u baahanahay ma aragtaan inaka ilaahay u baahan ilaahay inaka u baahan diinta islaamkana inaka u baahan kalluunka noloshiisa ilaahay wuxuu dhex geliyay waa biyaha dhexdooda weeyaan hadduu biyaha ka dhex baxo uu dhimanaya bani aadamkana cizigooga sharaftooda aakhiradooda adduunyadooda meeshay ku hagaagaysa ilaahay waxuu ka yeelay waa diin hadday diinta islaamka dadku ay ka dhex baxaanna way dhimanayaan marka kulligeen innaka u baahan ilaahay innaka u baahan salaadaan tukanay innaka u baahan diinta inaan maqalo oon isku baraarujino oon ka wada hadalno innaka u baahan rasuulkeennii udgoonaa calayhi الsalaatu wassalaam ibn mascuud radia allahu canhu ayuu ku yidhi qur-aanka dusheeda ku akhri waa nebi maxamed calayhi الsalaatu wassalaam ayaa ardaydiisii ka mida ka dalbanaya qur-aanka inuu dushiisa ku akhriyo marka cabdillaahi bnu mascuud radia allahu canhu wuxuu yidhi aqra'u calayka wacalayka unzil yaa rasuula allah ma adaan dushaadan qur-aanka ku akhriyaa qur-aanku aduuba kugu soo degee waxau nebigeenu calayhi الsalaatu wasalaam uu ugu jawaabay innii uxibu an asmacahu min hayrii qur-aanka waxaan jecelahay inaan dadka kale ka dhegaystee dusheeda ku akhri buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam qur-aankuna waa wacdigii ilaahay waa bayaankii ilaahay tabaaraka wa tacaala uu khalqigiisa u jeediyey weeyaan haddii qur-aanka dushaada lagu akhriyo ama qur-aanka adigoo aada akhrisanaysid ama meel ilaahay wacdigiisa lagu hayo aada maqasho waxaad ogaataa qur-aanku waa wacdiga ilaahay waa wacdi waa bayaan waa balaaq hada balaaqu linnaas waliyundaruu bihi waliyaclamuu annamaa huwa ilaahu waaxidu waliyadakara ulu lalbaab hada bayaanu linnaas qur-aanku waa bayaan waa mawcido markaad qur-aanka akhrisanaysid ama qur-aanka dushaada lagu akhrinayo waxaad ogaataa bayaanka ilaahay uu khalqiga u jeediyey ayaa adiga dushaada lagu akhrinaya marka nebi maxamed calayhi الsalaatu wassalaam waxa ugu jawaabay ardaygiisii innii uxibu an asmacahu min hayrii waxaan jecelahay qur-aanka dadka kale inaan ka dhegaystoon ka maqlee dusheeda ku akhri buu nebigu yihi calayhi الsalaatu wassalaam faqara'tu calayhi suurata الnisaa suuraddaasaan dushiisa ku akhriyey buuhi nebiga dushiisa ilaa laga gaadho aayaddaas
فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا marka halka uu marayo ayuu nabigu yiri xasbuka al'aan hadda quraanka halkii aan rabay aad gaarsiisay intaas ay ugu filan joojigu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam waxa kugu filaatay intaas dadna saxaabiga wuxuu yiri nabiga ayaan xaqiisa daymooday waaba nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam oo labadiisa indhood maaragtaan ilintu ay ka daadanayso naku maanta quraanka waan maqlaynaa wacdiga waan maqlaynaa laakiin isbedelkii uu yar yahay آيات قرآن النبي محمد عليه الصلاة والسلام دوشي سلقو جوجيي آية النبي محمد ولا إلمي وكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد حالك سديبو أهان دونا مالك قيامها مركان أمد والبآن كأنه أيضا أي النبي قيدي أو مرقا كفرا يأينو دينتي رسالة دي وقارسيي أدقنا مرقاتي أنكوسو جوجينو حالا aad ku marag furi doonto ummadaada inaad diintii aad gaarsiisay ana nabigeenu calayhi salaatu wasalaam quraanka ayuu tadabburayay quraanka ayuu ka fikirayay quraanka markuu akhrisanayana uu ooyi jiray oo Aisha radiyallahu anha waatii tiri salaata leelka markuu nabigu tukanayo ركعت كلي ونبي كنت كان يا سورة البقرة يا آل عمران يا سورة النساء سرجوك ديري ديسا يا نبي والله سوء برريين لأن مركب كتر لما تصنع هذا يا رسول الله يا رسول الله محاسد النفط هذا أدوك كلف إيسا إلهي أدوك معصوم بكاد قدام بيجي هرنا وكاد عفكيد دمنا وكا إلاليه مركب النبي قد جواب وحكويري أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا ميانا جعلين إن أنا هذا أنا قلنا أظن ربي جيسا كل شكرين عليكم مهلنا قايا آيات كهل ليس إلهي تنزيه ديسا هدو مرنا نبيو إلهي بو نزهاي آيات كهل ليس مارك تاني جنة هدو دول مرنا جنة إلهي ويديسان عيي آيات نارتا كهل ليس هدو نبيو سكرتا غنا naarta ayuu ilaahay ka magan galayay aayad ka hadlaysa ilaahay weynigiisa hadduu marana ilaahay buu nabigu weyneynaya calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid ah salaadii subax ayaa la gaadhay sunnaha nabigu sallallahu alayhi wasallam aqaladiisu ku soo tukani jiray inaku maanta salaada farad iyo sunnada waxaan la imanay maaragtaan waa masaajidii aqaladani nasiib maxaan u yeelnay salaada sunnada salaad sunna ah oo qofku tukada buu nabigu xadiis ku yiri salaadu qofku aqalkiisa ku tukanaya ayaa ugu fadli badan ilaa salaada faradka mooyane salaada sunnayaasha sunnaha ugu fadli badan waa sunnaha lagu tukado xaafadaha faradka mooyane faraa'idana masaajida loogu talagalay sunnadana waxaa fadli badan sunnaha aqalka lagu tukanayo si aqalkii uu noqdo aqal masaajidka cilaaqo la leh da aqalka salaada lagu dhex tukanayo oo quraanka lagu dhex akhrisanayo oo dadka aqalka jooga mar walba ilaahay ay aqalka ku dhex xasuusanayaan oo aakhirada ay aqalkooga ku dhex hadal haynayaan aqalkaasi wuxuu noqonayaa kal masjid laakiin aqaladii haddii aanan ilaahay lagu dhex xusaynin salaadna aan lagu dhex tukanaynin diinna aan lagu baranaynin waxau noqonayaa aqalkaasi qabri bannaanka dul yaaluu noqonayaa لا تجعلوا بيوتكم مقابر الذين قبرها كدغنا النبي صلى الله عليه وسلم امام الترمذي رحمه الله عليه وحيري اقلك hadaanan salaad lagu dhex tukanaynin salaade laga wada marka haweenkuna farad iyo sunnaba inay aqalada ku tukadaan baa u fadli badan raggana faraa'idana inay masaajida ku gutaan sunnaha ay tukanayaan sunnaha ugu fadli badan buu nabigu yiri waa kay aqalka dhexdiisa maaragtaan ay la tagayaan aqalka ku soo tukanayaan haddaan aqalka salaadba lagu dhex tukanaynin quraana lagu dhex akhrisanaynin diinna aan lagu dhex baranaynin ilaahay tabaaraka wa tacaala aan lagu dhex xasuusanaynin aqalkaasi wuxuu yiri imaamkaasi waa qabri banaanka dusheeda ka dhisan dadka ku dhex jirana waa dad dhintay la mid yihiin buu yiri meesha laga dhintay laga noolaada maaha jirkan dhimashadu runtu waa ta qalbiga weeyaan qalbiga marka nabigeenu calayhi salaatu wasalaam sunnaha wuxuu ku soo tukanayaa aqaladiisa
salaada faraa'idana wuxuu la iman jiray masaajidka. deedna bilaal baa nebiga u tago ku yidhi yaa rasuul allah salaaddii baa taaganoo jamci way ku sugayaan. markaa buu nebigu soo kacay calayhi salaatu wasalaam isagoo indhihiisa ay lilmadu ka daadanayso, meeshuu nebigu ku sujuudayana ay ilintu ay qoysay. deedna markaa buu nebigu ku yidhi yaa bilaal, xalaytoola aayadahan qur'aanka ayaa dusheeda ku soo degay, waylun liman qara'ahaa walam yatafakar buu nebigu yihi sal alla alay wasalam. aayadaha ninka akhriya ee aanan tadabburin, ee aanan ka fikirin, ee maskaxdiisa aanan ka shaqaysiinin, uu hoogay buu nebigu uuna khasaaray qofkaasi. awaakhir suuratu ali cimraan soo ma ahayn. awaakhir suuratu ali cimraan ina fii khalqi الsamaawaati wاlardi waاkhtilaafi اlleyli wالnahaar laaayaati liuli اlalbaab الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. aayadahaas dusheeda ku soo degay buu nebigu xalay toole yidhi. aayaduhu maxay ka warramayaan markaas? ina fii khalqi الsamaawaati wاlardi waاkhtilaafi اlleyli wالnahaar, samaawaadka iyo araadiinta abuurkooda iyo habeenka iyo maalinta isgadaal maraya, isbedilaya, iskaxaynaya. maalintiibaa yaa joogtay, habeenkiibaa imanaya. maalintiibaa tegaysa, maalintiibaa imanaysa, habeenkiibaa tegaya. nolosha adduunka dhanba waa habeen iyo maalin isbedilaya. bal wax u dhexeeya sheeg, wax saddexaad ma jira? waa habeen iyo maalin. hadday habeentaas saad u noolaan lahaydna nebi maxamed baa kuu jideeyey sal allahu alay wasalam. hadday maalin ay tahayna saad maalintaa u gudan lahayd, aada noloshaada u gudan lahayd, nebi maxamed baa kuu jideeyey.